waxay la kulmeen dibjirtii shalay dadka xasuuqay leynayay ayay la kulmeen waa u ayaan darog intii inoogu sarreysay qaar madaxtooyada inoo joogeen qaarna inoo joogeen amniga inay dibjiradii raaya shalay jigjiga joogeen soo diray dadka ay isla sawiraan iyagoo dhiigii dadka qoyay madaxtooyada lagu soo dhaweeyay maamulka Soomaaliya nimadoodii yaraa mar meel ku soo qorayaan dibjir baa la kulanteen oo Xuseen Qaasim baa ugu horeeyo kuwa waxaan wadaa in lambar 1 ka Mustafa Cabdi Siyaad baa saddex ka ragii reer saaqay ilmaadeerka ahaa baa la kulanteen laakiin wararka soo baxay waxay sheegeen federaalku ay halka kula kulmayaan Mustafa shalay wuxuu ka cabanayay walaalkay baa la dilay gaadha lagu xidhay hooyaday baa halkan lagu sameeyay waxaas uu ka cabanayay maxaa markuu dadka halkan ku xasuuqayo in isaga la iska celiyo la karbaasho marka dadka deegaanka waxaan soo jeedinayaa dawladda deegaanka kama mitiidin calaamadooda saan idin sheegnay baa rogaysaan dawladda federaalka ka mitiin dawladda deegaanka kamana amar qaadan kartaan cidda idin kala joogtana dibadda u tuuriyay kaydin ka bixi waayna suuliyada ku gura oo maxay haw jajina colaad baa geeska Afrika la qaatay colaadaas qaadanaysaan kulan haboon halkan waxay kula sugan Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heello wariye rog cadaaya dhinaca siyaasadana aad ugu dulin doona waxaan wax ka weydiin doonaa dagaalkii ka dhacay Dacwaley ee u dhaxeeyay shacabka deegaanada dega iyo sidoo kale ciidanka booliska ee dawladda deegaanka ka tirsan Axmed soo dhaw waan dhowhay Cabdi aad iyo aad baad mahadsan tahay giire marka waran maxaad xog kala socotaa saaka ee dagaalkii halkaas ka dhacay maxay xogii u dambeysay xogii u dambeeyay deegaanka la saddex oo deegaanka Dacwaley in xilligan uu degan yahay bulshadii ku noolayd ee deganayd ayaana gacanta ku haysa oo dub ugu noqotay ilaa shalay wixii ka bilaabma 12kii subaxnimo ilaa imkan kula hadlayo iyaga jooga nimankii dadka ku xasuuqay maatadaana waa dubaad loogu eriyo qaar baa la dubay uga gurteen xabad baa lagaga saaray markii ay ummadda xasuuqeen dad badan oo caruur iyo dumar u badan ayaynu warbaahintana soo deynay oo guryahooda lagu galay oo baadiyahooda beerahooda loogu dhex galay ciidankan markaa maxay ahayd deegaankuna si sharaf leh bay sameeyeen sida ay maxay ahayd qoladaasi xasuuqa dadweynaha u sameeyeen may sameeyeen gobonimadii la yaqaanay bay sameeyeen saraakiishii bay qabanayeen dadkii ay maxaabiistay qabanayeen si sharaf leh qaar biyaysinay qaar faleewooyin bay ku xidhayeen waa kuwii deegaanay maxay ahayd magaalooyinka iyagoo bad qaba haddii ay gadoodka dadka lagu sameeyay ay sameyn lahaayeen wax la inooga bartay ma ahayn marka aad marka hore ugu mahadnaqaya sida ay sameeyeen dadnima ku jirta maxaabiis marka la qabtana inta badan waa la xanaaneeya waana wax ila SNMT laynagu yaqaanay inuu sameey jirnay sidoodan caruurta ay gowracaan iyo dadka ay leynayaan iyo xasuuq iyo iyaga la mid noqon mayno marka degaankii dadkii lahaba gacanta ku haya وحسلون يهاي لمشى بدن بيجيستين إيه جونا مركي دم محي هذي كبها على طول مري محابس ترى بدن بالغها هي أو سراكيلو بدن أو محي هذي ما أنت رجع جوا ويلا إذا مدى حكومي يو على شوقي سراكي شكاها أي لقبتي هدي أمضوا أي دبعتين يسوع أما وحكوا سمين يسوع كواس بالبحوث كمان لسه قارين هالكود لجو جماد لها لكن ده كانوا واحد سمين كمان نبدي أو واحد أجينا لكلا جوري لكلا لكن كواس واحد كان عسين لكلا جوري لكلا تجيو وح ماشى كذا عينا شل قادمو يحسوق بيهيد وأنا لسه كذا بقى إيمانية إذا ماذا ماشي شغلنا عادي عاد بنقول بلينا سكوبني ماذا يتقالمين ويكوبني ما تقالمين ويكوبني ما دريرين ويكوبني ما محابس قبتين وأنا محايد وحي لب إحنا إمك حالة ويدقنتاي ضيال يوم محايد يتدقن كزوج هذانا وحي أورني ميت كي يداوع يدي ودرت هوستي سيدي تمالنتي لو يتبقى يقولوا أورني بالله أورنيا لكن تتخيل كمان أنت لو أورني عيدا بهن تتصور ري لكن كونهم كلا صورني والشعب كي أي لاين عرولي تمر باو بدن شلنا وين كهذا الله دجان كاسنا ودجان عراد الشوقة وايو تطلب ركعينه اللي تقولين تركيا أو طلع قد حساره أي هالك نول مناطق عيسى وضع سنوات هاد عولي إلى يجرجر اللي تقولين يسكحره أو محيط دجان كذا تبلاص لكن هرا لاص سيس عدم يعني تبلاص نقول معي way maxay ka dhigan tahay mar hadii markii hore waxa ku sugnaa odayaal madax dhaqameed salaadiin cid walba isugu jira oo nabad ka shaqeynayay oo iyagu koofiyadii nabad sito oo nabad ku baaqay la soo weeraray bal maxay ka dhigan waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan waa jaahilnimo iyo maxay ahayd waxaynan hore u arag dad erga ah oo nabad wada waliba iyagu daneynay waa dadkii meedkooda qaadan kari waayeen gurayay madax dhaqameed kani ama hargeysaha ka tageen ama balgubadlaha ka tageen ama xarshinaha ka tageen ama hartaha ka tageen ama gaashaamaha ka yimaadeen ama daroora ka yimaadeen waa dad isla dadka walaala nabadeeya kulliba la kala guuri maayay laakiin danimo yaro kibriyo ciidamada booliiska haysta oo Cabdi Siyaad ka mid yahay gafaadha ninka maxay ahayd loo taag laa
laakiin waa kibir jebin doonaa inankaasi ayaa maxay ahaday waxaan sameeyey isaga ay dul saarantay iyo Mustafa Maxamed Cumar oo de madaxweynihiisiiya Mustafa shalay wuxuu ka cabanayay walaalkay baa la dilay gaadha lagu xidhay hooyaday baa halkan lagu sameeyay waxaas uu ka cabanayay waa kan de aad aragtay beejka hadalkiisu soo dhigay deegaanka ciisaha markuu leeyahay iska celiyayna ilayo markuu dadka halkan ku xasuuqayo in isaga la iska celiyo la karbaasho marka dadka deegaankana waxaan soo jeedinayaa dawladda deegaanka kama mitiidin laga bilaabo intii aanu awaamirteedii faray dawladda deegaanka kama mitiidin calaamadooda sidaan idiin sheegnay baa rogaysaan dawladda federaalka ka mitiidin dawladda federaalkii halkaa deegaan baa ka soo bixi doona dadka reserve area degan oo dhami ay leeyihiin oo iyagu ismaamulaan oo maxay maamul magaalooyinkooda ay samaystaan dawlad deegaanka kamana amar qaadan kartaan cidda idin kala joogtana dibadda u tuuriyay hadduu maamul heer qabale yahay iyo hadduu maamul heer degme yahay iyo maamul heer gobol hadduu idin la joogaba dibadda isaga saara ka idin ka bixi waayna suuliyada ku gura oo maxay haw jecjina colaad baa geeska Afrika la qaatay colaadaas qaadanaysaan colaadaasaynu wada qaadanaynaa wax nabad la yiraahdo deegaamadaas ka dhacaya ma jiraan cidda imika ku fikirta colaadaas nabad baa lagu bedelayo dhiiggiisii qoyayna waa inaan habeen jirin way saaka wafti uu hogaaminayo wasiirka amniga ayaa dawladda deegaanka gaadhay halkaas ay sheegeen in ay ka wada hadlayaan dadkii deegaanka la soo weeraray arrinta maxay kala socdaa ونلا صعنا وزيرك كاشانديكا وزيرك مدحتويدا وزيرك أمنيكا تليها جودة إذا ماذا قرنكا تليها جودة إذا ماذا بوليسكا يسرقلك الله صحتها تجي وحيلا كل من دبشرتي شلي تذكر حسوقي ليني أي لا كل من وأو أيان ترك أنتي نوس الرئيسي قرر مدحتويدا يلو تشوين قرر يلو تشوين أمنيكا إن دبشرتي الرأي شلي تشوين صاد رأي تذكر أي سلاس وراني يقول ديك تذكر وأيان ترى كواد الدولة نبدأ هايستا وأيان ترى كواد إنجا هايستا رجع إنه حضرني وأيان ترى كواد إنجا هايستا معمل حماده محا إن يرو هير دجانة أنت سو وسير لو قلت رأيه هل كان أنت كتولان بفدرال كدجل هاي وسير كاشانديك جود يتليها جود كلا حد لهاي الحدودية وهي حدود عيدنا معمل دجان لقلا ما حضله معمل دجان ما حضي ملتري كتاي حضي العقد تاي حضي إميجريشن كتاي حضي أريمات دبت تاي لقلا ما حضله أفر تام معمل ماشان عيدامو حافظة أو غيره وتليه هذي أمرين درس كلا بحال الشعب سكديجان أيات تقول لي أضياش هالكاتري أنا جو احترام بدن وهاي حالي دبجرا لا كلن تاني دبجر كيس الله درا رجوا وين باتهين ومديني بالحسوقي حقه وحبا وميدان ترين لميدان حضل وميدان ترين عافمات تدكي ورك ما هيسان ما أنت لقصوا جورا يا ميت كودي مركز أنت تشتغل مدحتويد على قصة دوي مامول كسومان إنما دو ديران مرة ملك قصة قرية دبجر بالله كلن تين oo Xuseen Qaasim baa ugu horeeyo kuwa waxaan wadaa in lambar 1 ka Mustafa Abdi Siyaad baa saddex ka ragii reer saaqay ilmaadeerka haba la kulanteen dawladaha waaweyn doontaan u leenahay oo isna casayntiina isna iska daaya hadaydan dawladnimada garanayna cid dawladnimada garanaysa ummadan dawladeeda ugu wareejiyo ugu dhiiba laakiin wararka soo baxay waxay sheegeen federaalku halka kula kulmayaan inta imika aragnay inamada yar baa la kulmay dibjiradaas la kulmay intaynu aragnay dibjirkaas la kulmay wali waxde waynu maqalay taliyaha guud ciidamada militariga ma imanaya taliyaha guud ciidamada ma imanaya jijiga taliyaha guud ciidamada booliiskuna ma imanaya jijiga uma qorshaysno hawlo kale ka waaweyn baa ku yaala kalamay hadal taliyaashaasta in dad kale loo soo diraa wixii karta laakiin inta imika aragnay dibjiradii jijiga joogay dadkan xasuuqay bay la kulmeen axmed marka la eego dhinaca bariga dagaaladii ka socday iyo kan imika galbeedka bilaamay walow leeyahay waa deegaamiyaysan maxaa xiriir ma ka dhaxeeya xiriir weyn baa ka dhaxeeya arrimaha bariga meesha laga soo abaabulay waniga waraysiga ka soo qaadayeen sheegay jigjiga laga soo abaabulay dagaalkii laascaanood iyo waxa eriyada ka dhacay imika ka ceergaabana waa laga soo abaabulay inkastoo maxay jiraan rag nabad ka shaqeeyo dooniya deegaamadaas inay nabad noqdaan laakiin inama yaro kibrey baan marnaba ogolayn in halkaasi maxay nabad ka dhacdo marka xiriir bay leeyihiin waa dheer yahay xiriirku waa taxay saas uu wareegsan yahay dadkan waa loo soo tashaday laakiin dadkan inay tashadaan baa u fiican mashaakilka haystaanada waxa weeyaan madaxdii u talin lahaydna wali gacantay meel kula jiraan salaadiintii u talin lahayd wali gacantay meel kula jiraan suxufiyiintii horkici lahayd gacantay meel kula jiraan gacantana mar dambe aynu ogaan doonaa waxay tahay gacantay kula jiraan waxa weeye nin waliba meel buu wax yar gashadayo qarannimadii waxay nagala weynaatay gudnimada imika taala marka gudnimadaas ilaa laga baxo gobonnimo la heli maayo way ugu dambeyn
shacabka Soomaaliya waxaad u baaqaysaa shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa meel wala joogtaan dagaalka dacwaleyga kale idinku socdaba ka qayb qaata maanta ma jirto in wax la isku taagtaago uu ina mideeyay dagaalkaasi intay isku jeednay baa la inaga faa'iideystay mar dambe isku jeedi mayna cadowgeena mar lagu soo wajeena dadkaasi ma dacwaley lagu xasuuqayna waa in dhirbaaxa la yaab leh ay ka dambaysa adigu xal maxaad u aragtaa lagu nabadaynayo dadka deegaanada ku soo inta hawshan socoto ee dadka deegaamadooda laga soo qaadayo ee la soo eriyo nabadi ka dhici mayso oo meesha waxa jira xuduud baa la marinaya wadooyin baa la marinaya ninka kule halkan deganaan maysid ama wada deganaan mayno nabadi way ka dheertay Soomaaliland dhammaan waxa isku